waxaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda iyo ciidamada beesha tarishaanta. cabdi xasan ibraahin oo ka mid ahaa horjoogayaasha al-shabaab ayaa isku soo dhiibay gilibkii dambe ee maanta ciidanka dib u xureynta deegaanka iyo kuwa dowladda federaalk Soomaaliya ee ku sugan deegaanka tarashante ee dhaca koonfurta beledweyne. horjooga cabdi xasan ayaa al-shabaab u qaabilsanaa dhanka gaadiidka waxa uu ka mid ahaa shabaab muddo 7 sano ah. jabka al-shabaab ka soo gaaray dagaaladii Hiiraan iyo ficilada guracan oo shabaabka ay u geysteen dadka reer Hiiraan ayuu xusay inay ku kaliftay inuu ka tanaasulo fikirkii kooxda xagjirnimada ee al-shabaab. saaxiibadiisii hore ayuu ugu baaqay inay isu soo dhiibaan ciidanka dowladda iyo kuwa dib u xureynta ee ku sugan gobolka Hiiraan maadaama uu sheegay in shabaabka muddo fara badan ay qaldayeen dadka iyaga ka midka ah. bismillaah waxaan ahay cabdi xasan waxaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda iyo ciidamada beesha tarishaanta oo ay qaabileen waan nabad qabaa. walaalihi alla shaqo jiro halkaas jira waxa ka codsanaya waxbarkayga duu soo gaaro inay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda. waxa lixdan ku jiro waxaan u qaabilsanahay darawal. taliyaha guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Cornel Maxamuud Xasan Ibrahim Baakay saraakiil kale oo ka tirsan guutada shanaad iyo sidoo kale saraakiil ka mid ah ciidanka dib u xureynta deegaanka ayaa dhankooda warbaahinta la hadlay. waxa ay ballan qaadeen in askarta iyo horjoogayaasha shabaabka ay sidan si lamid ah u soo dhaweyn doonaan. waxa ayna soo dhaweeyeen horjooge cabdi xasan ibraahim. bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsan tahay bahda saxaafadda. waxaan ku sugannahay deegaanka tarajante waxa gacantayda midig taagan cabdi xasan oo iska soo dhiibay nimanka la baxay shabaab muddo 6 sano ah ka mid ahaa. deegaankan shalay way soo weerareen 10 lama ilaawanaha lagu siiyey. cabdi xasanna waa isa soo dhiibay muddo 6 sano la shaqaynayay. waxaan go'aansaduu yiri sida asaga haddaba uu garan doono inaan ka tanaasulo fikirkii xagjirnimada lagu dhibaateynayo muwaadiniinta Soomaaliyeed. sidaas awgeed shakhsiga dagaalamahayo oo wali qoriga sita oo la dagaalamahayo ummadda Soomaaliyeed iyo shakhsiga inta go'aan qaato ka soo taga fikirka xagjirnimada isku soo dhiiba dawladdu saacan laga bilaabo waa nooga sokeeyaa kuwa qoryaha sita oo wali duulka ku jiro oo dagaalamahayo inay wax dilaan u taagan. asaga waa isa soo dhiibay wuxuu isku soo dhiibay ciidanka amniga hadday ahaan leed ciidamada deegaanka oo ka shaqeeya deegaankan iyo kuwa dawladaba. saaka laga bilaabana wuxuu ugu jiraa gacanta dawladdu ku jira. dawladda ayaa qaabkay ugu tala gashay marin doonto. waxaana leeyahay kuwa la midka ah ee asaga wali ku dambeeya nimanka khawaariijta ha ka tanaasulaana fikirka xagjirnimada ay ku jiraan ha isu soo dhiibaana gacanta. cabdi xasan soo dhawow leenahay 7 sano ka hor markuu maqnaay oo intuuna gaarin ka hor saaxiibaan ajir hadda duu imaayeen saaxiibtinimadeenii ilmaadeernimadan isku joognay sidii u tahay. hal kalmad rabaan bas inaan ku daro bariyaan dambe Hiiraan ka isxantaan waxa la yiri hebel ay yimid oo cidiisu isku dhiibay hebel kale yimid oo cidiisu isku dhiibay hebel kale yimid oo cidiisu isku dhiibay. aan taas rabaa ka hadlo 10 sano hadduu magaalada joogo ama agagaarkeeda ku noolaado oo dawladnimada soo marin oo si sharciga u taalo uu soo marin meesha lagu arkaa lagu dilaa waa shabaab. qof kasta oo soo dhiibo inuu dawladnimada u yimaado. anaga cabdi xasan anagu naga soo dhacay nidaamkii dawladnimadan waa marsiinayna. taliskana anaga guutashanada liira guutashanada xarunteedan geynayna taliyaasha noo jooga u geynayna mas'uuliyadda dowladda u geynayna booliska dirta u geynayna cid allaal cid qosayso dawladnimada ninkan sharciga soo dhiibyaashu yaala waa marinayna. laakiin dadka qajacqajacda ku jira oo magaalada joogo oo beelahooda isku soo dhiibay haddii 10 sano ay joogaan ku ruux dheerayaan macala maalinkii la arko shabaabnimo loo dilay. waxa u daliil inuu meesha ka soo tago magaalada iska jooga u yiraahdo wax sharciga waafaqsan ma ani dadkaas basan digniin u diraya inay dawladnimada u yimaadeen oo sharciga ogolaadaan oo qof kasta meesha isku soo dhiibay ka bacdiga dawladda loo dambeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. isla maanta waxa soo dhiibay kaliyaada cabdi xasan oo kamid ahay kooxaha al-shabaab muddo 6 sano la shaqeynay haddana gartay inuu fikirkan maadaama ay qalad ku shaqeynaan inuu ka tanaasulo dadkiisa iyo dawladaba isku soo dhiibo. asagana waa soo dhaweynaynaa waxba hadda uga sii dheeraama oo alla fahansiiyey in uu ka soo laabto fikirkii guracnay oo ku jiray muddo dhan 6 sano iyo bar ilaa 7 sano
haddii uu alla fahansiiyey uu ka soo baxay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay walaalkay cabdi xasan waad mahadsantahan ku leeyahay haddii aad garatay jidkii aad shalay 6 sano ku jirtay inuu qaldanaa oo waddadan aad isku soo dhiibtay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa mahadon ilaahay u sugnaatay laakiin waxaan u mahad celinayaa talajanta ciidanka jooga oo deegaanka ah oo gacanta midigna kula dagaalamaya argagixisada aad u gurracan gacanta bidixna ku soo dhaweynaya cid allaale iyo ciddii garatay inay dadkeedii iyo deegaankeedii dib ugu noqoto waddadii horena ka timaado siday kuu soo dhaweeyeen waxa soo wareegista ay ninkan soo dhaweynayeen iyo dagaalkii ay shalayba isku waqti ah saa daraaddeed waxay leeyihiin abaal wax isaga qasanna ma laha reer Tirshanta waa mahadsan yihiin aan leeyahay wixii hadda ka bilowdo cabdi xasan wuxuu marayaa boroseeska qaranku uu u dejiyey waana soo dhaweynaynaa inta kale ee maqan wax magaradku uu ka saayid caleey waxaan leenahay imaada walaalayaal ku qoys qaata walaalihiin hore u yimid soo dhawaada dadkiina u soo noqda tani markii uu bilowday dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee Hiiraan inta badan looga saaray waxa ay soo dhiibay ciidamo iyo sidoo kale horjoogayaal shabaab ka tirsan kuwaas oo ay ka turjumayso sii dhoobitaankooda inuu dhacay gobolkii kooxda al-shabaab Maxamed Ibrahim Siyaad